kulanka oo isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha Eele ayaa looga hadlay xildhibaan Cali Aadan Xuseen oo kursiga xildhibaannimo ku matala beeshaasi iyagoo sheegay in ku dhawaad 15 sano uu xilka hayay. waxay sheegeen in muddadaasi uu kursiga ku matalayay aysan jirin wax uu qabtay dadka iyo deegaanka uu matalo. maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dowladda dhexe ayay ka dalbadeen in mar kale kursigaas uusan ku soo laaban, waxayna dhinaca kale eedeyn u jeediyeen malaaqa beeshaasi oo ay tilmaameen in isaga kursiga uu ku hayo sida hadalka ay u dhigeen odayaashan. haddii waqti dhama maylen baaya in macnaa beeshi shiriido beeshi maatiin haa kaaliya ninkan waqtigiis waa dhammaaday musharaha leen baahanye dadkii haas musharaha cadaalad maamul fadee daraad lan oo walaalka Eele Maxamuud Seen ara meel musharaha kanadi ma eray lan ku Eele min ari warsame ari waan ma chan dibkaas ma sheeno ku awoodni hayso awoodni diidni saalka bila awood mani xukumaw nagu buuxo waa karsannahay waana nocunay halwo saxan saaran waxba ma dhaano haday dawlad cadaalad jirto hana la aragto waaba maqleenan u maleynay sida badan lafta gareen ha aragto sheekadaas ay iyo aflagaadi waa ka dharigsannahay qofta markay hangal taagdo anu hildhibaannimo iyo sharax kale hadii igu jiro male laakiin dhibkeygaan ku hadlayaa oo cadaalad ah oo alla ogaan ah oo sagaal eenanimo ahaan uga hadlaa garabsataan kursigu waa wawdooyo lay ka dhaganaada lay un magaadaan bidiuna sagaal eelana un dulgaadaan bale kursigu ala aadan waqti shay dhamaadi langi ilaahay nasiibay ka horta nasiibay ka dhaga waynka gabaana wali dhibaatee kursiga laaga suubi waasiin shaqayeedan dhigtin marka waxaan u sheegaynaa madaxda dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Xasan Ali Sheikh Roble inay odkeeni wax naga qabtaan ilaa roobka hadda igu daay ma ahane kan hadda soo socdo waayo tan aan ka hadlayna sababtoo ah doorashadii ku horeysay musharaxiinteena ma ala nabadoonadeena ugaasideena lagu xiray gobolka Baay haddii cadaaladnimo jirta warsamo Huseen Ali Aadan Huseen anako beesha Eele buur in xuquuqtan aan ka dhig dawladda dhexe iyo dawladda hoose gobolka Baay lafta gareen intii xuquuqtan aan dhiyo fadaan beesha reer Eele adduunka lagu aqoonin oo ma jirto ninkaas Ali Eele la dhahayna inuu dadkaas hoog gumeysi ku haysta moog lama hadday maartay dhan siyaasadnimo ahaan wax lagu qabanayo hadday tolnimo ahaan wax lagu qabanayo hadday kala inaan ninkaas naga qabto mina aad ku odsaynaa dadka Soomaaliyeed waxaan codsanaynaa maanta dawladda Koonfur Galbeed lafta gareen waxaan u jeednaa maamulka hadda socda iyo maamulka awal socday ismalaha maamulkaana ka fiican lafta gareen waxaan ku codsanaynaa bees reer Eele markaan nahay ninkaas nama masalo labadaas qofood. hadalka odayaasha dhaqanka ayaa imaanaya iyadoo dalka dhawaan uu galayo doorasho isla markaana la filayo in soo xurista xildhibaanada dib loo bilaabo. Maxamed Cabdi Xasan, Kalsan TV, Muqdisho. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank